Dowladda Shiinaha ayaa ku baaqday in la aasaso dowlad Falastiin ah oo leh madax-banaani iyo xorriyad buuxda, taasi oo caasimadeedu noqon doonto bariga magaalada Qudus. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in Beijing dareensan tahay walaaca ay ka qabaan wadamada muslimiinta ee xaaladda xuduudaha la haysto, taasi oo sare u sii qaaday markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inay Qudus tahay caasimadda Israa'iil. Waxaanu taageersanahay in wada xaajood wax walba lagu dhameeyo iyadoo la raacayo heshiiska caalamiga ah ee qaramada midoobay. Waxaan sidoo kale taageersanahay sidii loo soo dhisi lahaa dowlad madax bannaan oo Falastiin ah, taasi oo caasimadeedu tahay magaalada Qudus, kuna saleysan xuduudihii 1976. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in magaalada Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil uuna rarayo safaaradiisa, taasi oo ay ka caawdeen dowladaha wadamada Islaamka iyo hogaamiyayaal badan oo ka tirsan wadamada